الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية مدن حمزة عبد برre mudanayaasha iyo marwooyinka halkan jooga iyo warbaahinta iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan si rasmi ah u bilaabanaynaa munaasabadeena ee magacaabista golaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waa golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. marka waxaan ku bilaabaynaa aayadaha Quraanka Kariimka ah. Maxamed Mursal Khaliif ayaa inoo akhrin doona aayadahaas. Maxamed soo dhawow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. محمد خليف aad buu mahadsan yahay. waxaa sharaf ii ah maanta in munaasabadan magacaabista ah ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee ra'iisul wasaaraha mudane Xamse Cabdi Barre aanu si rasmi ah maanta halkan uga daahroogayno. marka waxaan jeclahay in aan ku soo dhaweeyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre bal inuu halkan ka jeediyo kalmadiisii inta aanan u guda galin qaybaha kale ee barnaamijkeena. soo dhaw ra'iisul wasaare. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. mudanayaal iyo marwooyin dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaa sharaf weyn ah in maanta oo ay taariikhdu tahay 2 bisha 8aad 2022 hortiina soo istaago si aan idinku soo bandhigo golaha xukuumadda cusub ee aan hogaamin doono insha Allah. mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal dadkeenu waxay ku jiraan marxalad adag oo ay la daalaa-dhacayaan amni darro iyo abaaro daba dheeraad. marxaladan adag waxaa lagama maarmaan ah in la helo xukuumad xilkasa oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed samata bixin karta. mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal wadatashi dheer oo qaatay dhowr iyo 30 maalmood kadib oo aan la yeelanayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya guddoonka labada aqal ee baarlamaanka xubnaha labada aqal ee baarlamaanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aan u soo xushay aqoontooda khibradooda kartidooda iyo hufnaantooda kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda. waxaana rajaynayaa in ay ku guulaysan doonaan in ay Soomaaliya cusub ay dhaba cusub u jeexaan ayagoo aan aaminsanahay in ay hirgelin doonaan barnaamijka weyn iyo aragtida weyn ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo halkudhagiisu yahay Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la. waxaan si xushmad
iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijkeeda oo aan si degdega u horkeeni doono. ugu dambayn waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqayaa in ay soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dan qaran si ay u gudato waajibaadka qaran ee culayska badan. aad iyo aad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullah. intaas kadib waxaa insha allah uu bayaanka magacaabida inoo akhrin doona afhayeenka xukuumadda mudane Farxaan. waa mahadsan yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre. khudbadaasi qiimaha leh ee uu soo jeediyey ku tacalluqtay muddadii uu wadatashiga dheer uu sameeyey ra'iisul wasaaruhu si markaasi uu u soo dhiso xukuumaddan maanta aynu ku dhawaaqi doono oo ah xukuumad tayo leh sida ra'iisul wasaaruhu uu sheegayna ummadda Soomaaliyeed ka samata bixin doonta dhibaatooyinka hadda haysta. marka mar labaad sharaf bay tahay maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 2 bishan Agost in liiska halkan uga dhawaaqo golaha xukuumadda ama golaha wasiirada Soomaaliya. magacaabista golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Xamse Cabdi Barre markii uu arkay qodobka 97 faqradiisa 3aad ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay qodobka 98aad faqradiisa xarafka a iyo ba ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay qodobka 100aad xarafka a iyo ba iyo a ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay ra'iisul wasaaruhu howlaha baaxadda leh ee hor yaalla markii uu tixgeliyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabista golaha wasiirada ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay qodobka 1aad xubnaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaana ay kala yihiin sida soo socota mudane Saalax Axmed Jaamac ra'iisul wasaare ku-xigeen mudane Sheekh Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta mudane Xasan Macallin Maxamuud wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mudane Axmed Macallin Fiqi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane Dr. Cilmi Maxamuud Nuur wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane Cabduqaadir Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane Abshir Cumar Kuruuse wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Faarax Sheekh Cabduqaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beene wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha General Cabdullaahi Axmed Jaamac Elkajiir wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Marwo Fardowso Cismaan Cigaal Dhoore wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo cirka iyo dhulka mudane Jaamac Xasan Khaliif wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelaay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane Jibriil Cabdirashiid Nuur Xaaji wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka mudane Dr. Cabdirasaaq Cumar Maxamed
wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta mudane dr maxamed axmed sheekh cali doodishe wasiirka amniga gudaha mudane axmed madoobe nuunow wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka mudane dr cali xaaji aadan wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada mudane axmed xasan aadan wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mudane daawud aways jaamac wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska mudane biixi iimaan cige wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha mudane jaamac takhal cabbaas wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha mudane maxamed barre maxamuud wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo marwo khadiija maxamed almaqsuumi wasiirka wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada qodobka labaad xubnaha wasiir dowlayaasha mudane abshir maxamed axmed abshir bukhaari wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane xirsi jaamac gani wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha marwo muumino sheekh cumar wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mudane ilyaas cali xasan wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta marwo raaxo maxamed maxamuud janaqow wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda mudane cabdinuur daahir fiidow wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga mudane cali maxamed cumar wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga marwo nuura mustaf guudow wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane cabdirashiid jire qalinleh wasiiru dowlaha wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha abdiqaadir maxamed wasiiru dowlaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda mudane maxamed cali cumar caananuug wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka mudane axmed cusmaan diiriye wasiiru dowlaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane dr sulaymaan cali xuseen wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane cabdisalaam shariif xuseen wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha generaal bashiir maxamed jaamac bashiir goobe wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta marwo aamine xasan cali wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dr maxamuud axmed maxamuud mashruuc wasiiru dowlaha wasaaradda batroolka iyo macdanta maxamed cali xagaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha amniga gudaha mudane asad cabdirasaaq maxamed wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka marwo maryan maxamed xuseen wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada mudane maxamed bashiir cali baxnaan wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mudane yuusuf maxamed aadan wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha mudane maxamed cabdullaahi faarax wasiiru dowlaha wasaaradda korontada iyo biyaha mudane dr aadam ibraahim awxirsi wasiiru dowlaha wasaaradda bee'ada iyo isbeddelka cimilada qodobka saddexaad xubnaha wasiir ku-xigeenada xukuumadda cusub ee federaalka mudane saalax shariif sayid cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda
arrimaha diinta iyo awqaafta mudane axmed cabdiraxmaan xasan wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mudane cabdixakiin xasan ashkir wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane cabdiqafaar cilmi xaange wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane cabdifataax qaasim maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane cabdifataax qaasim maxamuud wasiir ku-xigeenka halkaan ku celiyo mudane cabdiqafaar cilmi xaange wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane cabdifataax qaasim maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga mudane isaaq maxamuud mursal isaaq fanax wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane axmed cusmaan ibraahim daqare wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane maxamed cabdiqaadir cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane saadaam maxamuud cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda mudane generaal sulub axmed firin wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka mudane xuseen axmed culuso wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane aadan maxamed cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane cismaan maxamed cabdi daalo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane maxamed cali maxamuud tam wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta mudane cabdixakiim jimcaale aadan wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka mudane cabdiwahaab cabdi cumar caananuug wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta mudane isaaq maxamed maxamuud obow wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha waa wasaaradda amniga gudaha mudane isaaq maxamed maxamuud obow waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha marwo sahre yuusuf cige wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka mudane doctor maxamed xasan maxamed bulaale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada mudane cali ifiye cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mudane cabdiraxmaan yuusuf cumar alcadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska mudane cismaan libaax ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha mudane ibraahim maxamed cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda korontada iyo biyaha marwo fahma axmed nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo ugu dambayntii mudane doctor saciid maxamed cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada wasiirada cusub ee la magacaabay maanta waxaa la farayaa in ay si deg deg ah ay ula wareegaan xilalkooda kadib marka la dhaariyo wasiirada qodobka ugu dambeeya shanaadna magacaabistani waxa ay dhaqan galaysaa marka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaana lagu soo saarayaa ama lagu baahinayaa warfaafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya